daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta Bollywoodka. Barnaamijka falanqaynta Bollywoodka waxaa ku soo qaadanaynaa filimka Qiyaamad Si Qiyaamad Taag. Waa filim markasta la xiiseeyo. Filimkan fanka Hindiya wax weyn ayuu ka bedelay maadaama hogaamiyaal ka yihiin jilayaal dhalinyar. Sidoo kalena waxaa lagu muujiyay in dhalinta miisaan ku yeelan karaan fanka Hindiya. Qiyaamad Si Qiyaamad Taag waxaa director ka ahay Mansoor Khan. Mansoor Khan waa markii uu ku horeysay uu filim sameeyo. Sidoo kalena waxaa maalgeliyay Aamir Khan adeerkiisa Naasir Xuseen. waxaana lagu soo caan bixiyay Aamir Khan iyo Juhi Jalwa. Qiyaamad Si Qiyaamad Taag wuxuu soo baxay 29 Abriil 1988 wuxuuna box office-ka Hindiya sanadkaas ka noqday super hit. waana filim ilaa haatan jecel yihiin dadka xiiseeya aflaanta Hindiya. daawadayaal ku soo dhawaada Qiyaamad Si Qiyaamad Taag iyo xaqiiqooyinkiisa gaarka ah. xaqiiqda koowaad daawadayaal waa filimkii ugu horeeyay ee lagu bilaabo nidaamka xayeysiinta hadda filimada loogu sameeyo. waxaa meel walba lagu dhejiyay qoraallo dadka soo jiidanayo sida waa kuma Aamir Khan. sidoo kalena mootooyinka bajaajka oo dhan waxaa lagu dhejiyay sawirada Aamir Khan. weliba suuqgeyntan Aamir Khan ayaa sameeyey oo magaalo walba tegay xilligaas. xaqiiqda labaad daawadayaal dhammaadka heesta caanka ah Papa Kehta Hai Barana Mukarika. Aamir wuxuu u dhowaanaa gabar, qof kalena ma ahan gabartaas, waa Reena Tuuta, xaaskii hore Aamir Khan. Aamir Khan iyo Reena markaas ayay isguursadeen. si lama filaan ah ayay goobta filimka lagu duubayay ku timid. daawadayaal xaqiiqda saddexaad marka uu box office-ka filimkan hit ka noqday si oo muddo dheer tiyaatarada u saarnaado, kooxda canjaladaha Mumbai qaybisa waxay la imaadeen ganacsi hirgalay oo ah qofkii iibsada 5 ilaa 4 in la siinayo kaarto ay ku sawiran yihiin Aamir Khan iyo Juhi Jalwa. waxayna noqotay siyaasad si weyn u hirgashay. xaqiiqda afraad daawadayaal Aamir Khan dunida iyo dalkiisa Hindiya caan ayuu ka noqday, waana marka loo bixiyay Loverboy oo ilaa haatan marmarka qaar loogu yeero. xaqiiqda shanaad daawadayaal filimkan Qiyaamad Si Qiyaamad Taag waa filimkii ugu horeeyay ee aanka yagni ka heesto. xaqiiqda lixaad filimkan waxaa lagu helay dhowr abaalmarino oo kala duwan. Aamir Khan iyo Juhi Jalwa waxay ku heleen bilada jilaaga ku cusub fanka Hindiya. xaqiiqda toddobaad adirishada filimkan Juhi Jalwa tijaabada filimkan marka ay mareysay qofka wareystay tijaabadana ka qaaday wuxuu ahaa Aamir Khan, laakiin marnaba ma aysan ogeyn inuu ahaa adooraha filimka jacaylkana kula jili doonto. xaqiiqda sideedaad daawadayaal filimka Qiyaamad Si Qiyaamad Taag mar kale ayaa dib loo sameeyey asagoo ah Bangladesh. superstar Mohammed Aamir Hussain Khan da'diisu haatan waa 52 sano jir, waana jilaa aana filmo badan sameynin. saas ay tahay 5 jilaa ee ugu awoodda badan dalka Hindiya ayuu ku jiraa. dadaal dheer kadib Aamir Khan 4 sano ee lasoo dhaafay filimadiisa ayaa ugu awood badnaay Bollywoodka. daawadayaal barnaamijkan falanqaynta Bollywoodka waxaa nila socodsiinayay anigoo ah Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. ammaano Allah sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.